Assalaamu calaykum saaxiibayaal. Ku soo dhawaada channelka Aragtida Maanta. Waa mar kale iyo muuqaal cusub. Muuqaalkeena maanta waxaan ku sharaxaynaa filim riwaayad ah kaas oo aad u xiiso badan. Filimkan ayaa lagu magacaabaa Big Brother. Daawasho wacan. Ninkan oo lagu magacaabo Henry ayaa dib ugu soo laabtay Hong Kong kadib markii uu muddo badan ka mid ahaa ciidamada Mareykanka. Hadda waxa uu qorsheynayaa in uu macallinimo ku shaqeysto. Waxa uu aaday iskuulkiisii hore oo lagu magacaabo Takiche Secondary. Henry ma uu lahaa wax khibrad macallinimo ah, balse markii uu arkay maamuluhu warqadihiisa codsiga, waa uu aqbalay in uu shaqaaleysiiyo. Inta uusan Henry dib ugu laaban gurigiisa, maamulaha ayaa u sheegay in galaaska uu macalinka ka noqon doona ardayda dhigata ay yihiin kuwa ugu akhlaaqda xun dhammaan ardayda iskuulka dhigata. Subaxnimadii, Henry waxa uu socdaa iskuulka si uu u arko galaaskiisa cusub. Markii uu soo galay fasalka ayuu arkay ardayda qaarkood oo iska ciyaaraya game, qaar kalena ay hurdayaan, halka kuwa kalena ay iska heesayaan. Dhanka kale kuwa kale ayaa mobilkooda ku ciyaaraya game, halka qaarna ay cunto karinayaan. Ardayda ayaa ignore gareynaya macallinkooda cusub oo mid walba shaqadiisa ayuu iska sii wataa. Markan Henry ayaa isku dayaya inuu ardayda attention-kooda soo jeediyo si ay xiisada u dhageystaan. Marba qaar ka mid ah ardayda ayuu la hadlayaa. Waxa uu u tagay ardaygii cuntada karinayay isagoo u sheegay in uu wax yar ka cuno cuntada maadaama ay ku badan tahay maadada sodium. Henry ayaa u soo dhawaaday arday lagu magacaabo Zuva oo tumaya gitaarka musiga lagu garaaco, isagoo ka caawiya habka uu garaacayo gitaarka. Isla markiiba ardaygii waxa uu dul tagay mid kale oo video game ku ciyaaraya telefonkiisa. Waxa uu uga digay in ay waxyeello ka soo gaari karto shucaaca telefonkiisa ka soo baxaya ee uu maalintii oo dhan ku dhegan yahay. Ugu dambeyn ardaydii waa ay dhageysteen macallinkooda. Waxa uuna sabuurada ku qoray magaciisa iyo telefonkiisa. Ardaydii ayaana ku qoslay sida foosha xun ee uu wax u qoray. Kadib waxaa isla markiiba soo wacay mid ka mid ah ardayda. Henry ayaana telefonkiisii qatay. Kadibna waxa uu ku dhahay galaaska isaga bax macallin, isaga oo foodeynaya. Dhammaan ardaydiina waa ay ku qosleen. Ardaydu ma aha kuwa xushmeynaya macallinkooda, waxa ayna iska sii wateen baashaalkoodii iyaga oo iska ciyaaraya. Henry kuma faraxsana sida ay ardaydu u dhaqmayaan. Markan waxa uu ku fikiray siduu ardayda attention-kooda u soo jeedin lahaa. Waxa uuna soo qaatay jeesto iyo laastig isagoo ku dhuftay tuubadii dabdamiska ee qolkaas taalay. Biyo ayaana ardaydii dusha uga soo fidhismay. Ardaydiina sidaas ayay ku kala carareen. Ugu dambeyn waxa uu ku guuleystay in uu wax yar attention-ka ardayda soo jeediyo. Markii xiisadu ay dhamaatay, 5 ka mid ah ardayda ugu darajada hooseysa dhammaan fasalka ayaa waxay isku aruursadeen meel gooni ah iyaga oo sigaar cabis bilaabay. Hogaamiyaha groupkan ayaa lagu magacaabaa Jack, kaas oo ka soo haray fasalkan midka ka sareeya kadib markii uu ku dhacay imtixaankii finalka ahaa. Markan waxa uu gacanta ku hayaa telefoon isaga oo fiirsanaya sawirka gabar ka mid ah ardayda fasalka dhigata. Groupkan ayaa waxay xafiiltan kala dhaxaysaa group kale oo uu wato cunug taajir ah oo ka tirsan kooxda kubadda koleyga ciyaarta ee iskuulku leeyahay, kuwaas oo ugu soo galay qolka iyagoo ishuruufayaan Jack oo uu arkayay mid faqiir ah. Ugu dambeynna waxa uu banoonigii ku soo tuuray gabar ka tirsan groupka Jack. Markan sida muuqata waxaa training sameynaya kooxdii kubadda koleyga ciyaaraysay, halka Jack iyo groupkiisii ay daawanayaan. Jack ayaana dhala ku soo tuuray xaydaabkii ay kooxdu kubadda ku ciyaaraysay, waxaana dhaladii isagoo aan filan ku istaagay hogaamiyihii kooxda isagoo si xun dhulka ugu dhacay, halka groupkii Jack iyo intoodii kalena ay ku qosleen. Balse waxaa dhaladii qaaday macallimadii Ingiriiska oo lagu magacaabo Miss Liam. Si ay u ilowsiiyaan macallimada khaladkii ay sameeyeen ayaa waxay prank ku sameeyeen macallimadii iyadoo ku mashquulsanayd wax nadiifin. Waxay waraaqad u dhexgeliyeen xayawaan yar. Markii ay aragtay ayayna isku naxday, iyana waa ay kala carareen. Si kastaba ha ahaatee, madaxa waxbarashada ee iskuulka ayaa aad ugu wareersan xaaladda iskuulkiisa ka taagan. Waxa uuna shir isugu wacay macallimiintiisii isagoo qorsheynaya inuu macallimiinta mushaharkooda ka goosto 20%.
macallimiintii ayaana shirkii banaanka uga soo baxay iyagoo ka doodaya sababta mushaharkoodii loo yareeyay. dhanka kale Henry oo degdegaya ayaa galaaska u soo socda halka ardaydii dhibka badnayna ay qorsheynayaan in ay macallinkooda prank u sameeyaan iyagoo baaquli biyo ku jiraan saqafka sare ee qolka ku xari kula xiray si marka uu macallinku soo galo ay biyuhu kor uga soo daataan. markii uu Henry soo furay albaabka ayaa waxaa kor uga soo dhacay baaquligii biyuhu ku jireen, balse Henry ayaa si dhaqso badan uga falceliyay isagoo gacanta ku dhuftay baaquligii una tuuray dhanka ardayda. qaar ka mid ah ardayda ayaa sugayay in ay telefoonkooda ku duubtaan waxa ku dhici doona macallinkooda, balse afka ayay kala taageen markii ay arkeen falcelinta macallinkoodu sameeyay. Henry ayaa Jack weydiiyay in uu u soo dhiibo kartoonka sigaarka uu cabo ay ku jiro. Jack ayaana aqbalay oo si fudud macallinkii ugu soo dhiibay sigaarkii. intaas kadib Henry ayaa wuxuu Suufa weydiiyay in uu u sheego 3 maado uu ka kooban yahay sigaarku. isla markiiba Suufa ayaa su'aashii si fudud uga jawaabay. maalintaas Henry waxa uu awooday in uu galaaska aamusiyo oo uu dejiyo jawiga galaaska. Suufa ayaana uu ku amray in uu garaaco gitaarka muusiga halka ardayda dhammaantoodna ay isruxayaan oo miisaska garaacayaan. intaas kadib mar labaad waxa uu ku amray inay aamusaan ardaydii, waxa uuna galaaskii oo dhan u qaybiyay sigaarkii isagoo weydiiyay inay analyze gareeyaan maadooyinka sigaarku uu ka kooban yahay. Henry ayaa ogsan haddii ay ardaydu si dhaba u ogaan lahaayeen khatarta caafimaad ee sigaarku leeyahay in aysan cabeen. waxa uuna sabuurada ku sawiray sigaar isagoo weydiiyay inay u sheegaan oo ay sharaxaan waxyeelada caafimaad ee sigaarku gaarsiiyo sanbabada bini'aadamka. nasiib wanaag markii ugu horeysay dhammaan galaaska waxa ay attention-kooda siiyeen macallinkooda iyagoo waliba xiiseynaya waxbarashada. markii uu gambaleel ku yeeray ayaa waxa ay ardaydu u ogolaaday in ay nusu saaco raadsadaan sigaarkoodana ay iska soo cabaan. ardayduna waa ay aqbaleen. maalintaas markay tageen cafeteria-da, kabtankii kubadda kolayga ayaa wuxuu jallaafo u dhigay mid ka mid ah Jack saaxiibadiis, kaas oo ku dul dhacay miiskii ay cuntada ku cunayeen. waxa uuna dagaal toos dhex maray labadii kooxood iyagoo isla dhacaya cuntadii ay cunayeen iyo kuraastii ay ku fadhiyeen. waxa ayna jajabiyeen qalabkii maqaaxida yaalay. Henry ayaa soo galay hoolkii ay ku dagaalamayeen ardaydu isagoo isku dayay in uu kala celiyo ardayda. waxa uuna Jack u sheegay in uu istajiyo oo uu dagaalka joojiyo, balse Jack ayaa ku afceliyay macallinkiisa isagoo u sheegay in aysan iskuulka cadaalad ka jirin oo ay maamulka iyo macallimiintuba la safan yihiin cunuga taajirka ah oo aan marnaba la ciqaabin isaga. intaas kadib Henry ayaa lagu wargeliyay in 5 ka mid ah ardayda si ku meel gaar ah looga joojiyay in ay galaaska soo xaadiraan maadaama ay dagaalka bilaabeen iyagu. Henry waxa uu raadinayaa faylalka 5 arday ee horey maamuluhu ugu sheegay in iskuulka si ku meel gaar ah looga joojiyay si uu wax uga ogaado macluumaadkooda. ardaygu ugu horeeya uu u qabtay feelkiisu waxa uu noqday Suufa, waxa uuna ka soo jeedaa Pakistan, kaas oo qaxoonti ku ah dalka. waxa uuna la kulmaa takoor iyo cunsuriyad qaar ka mid ah ardaydu ay ku sameeyaan isaga oo lagu eedeeyay falal tuuganimo. booliskana si joogto ah loogu dacweeyo. Suufa waa wiil miskiin ah, rajada kaliya oo uu leeyahayna waa in uu noqdo musician. ardayga labaad ayaa ah gabar lagu magacaabo Danaan, taas oo aabaheed si aan wanaagsanayn ula dhaqmo, arintaas oo niyad ku abuurtay gabadha yar. maxaa yeelay aabaheed waxa uu jeclaa in ay wiil noqoto. Danaan waxay mar walba isku dayi jirtay in ay aabahood u soo dhawaato oo ay xushmad iyo wanaag u muujiso. waxa ay gaabsan jirtay tinta, waxayna sidoo kale ku ciyaari jirtay baabuurta wiilashu ku ciyaaraan si ay isaga dhigto wiil. ugu dambeyntii Henry waxa uu gacanta ku dhigay faylkii Jack isagoo wax badan ka ogaaday macluumaadka ku saabsan Jack iyo qoyskiisa. markan waxa aynu aragnaa Jack oo maqaaxi waiter ka ah, waxaana maqaaxidii soo galay nin lagu magacaabo Chanian, kaas oo sheer ku leh maqaayadda. waxaana laga xaday bir dahab ka samaysnayd, taas oo lagu tuhmay in uu qaatay Jack. halkaas oo Jack lagu jir dilay isagoo si xun loo garaacay. ugu dambeyntii Chanian wuxuu gacanta ku dhigay ID card-kii Jack
isagoo aqoonsaday in uu yahay arday sidoo kalena waa uu raali geliyay waxa kale oo uu siiyay waxoogaa lacag ah waxa uuna u soo bandhigay shaqo cusub oo ah in uu ka shaqeeyo qaybta delivery-ga daawadayaal muuqaalkeeni maanta intaas ayuu ku egyahay fadlan la soco qaybta labaad oo ha moogaan haddii aad channelka ku cusub tahay fadlan subscribe noo saar muuqaalkana like saar aad iyo aad ayaa mahadsantahay